guddiga amniga ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxay kulan la qaateen wasiirka amniga iyagoo kala hadlay xaaladda amniga dalka. wariyana Igraan Shire ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo guddiga amniga golaha shacabka ayaa maanta xarunta guddiga oo ku taala Villa Hargeysa kulan kula yeeshay wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga golaha shacabka Xildhibaan Nuur Axmed Digri iyo wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Axmed Oodishe ayaa si wadajir ah warbaahinta ugu faahfaahiyay waxyaabihii kulanka looga hadlay. shirkeennii aan halkan isugu nimid maanta runtii wuxuu ku soo gaboobay si guul ah. waxaan oga hadalnay dardargelinta howlaha guddiga iyo hay'adaha hoos yimaada oo ay u horeyso wasaaradda amniga oo maanta nala joogta. guddiga wuxuu usii tallaabsan doonaa insha allahu hay-adaha kale oo wada shaqaynta ay leeyihiin sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamul goboleedyada intaba. haddana maanta waxaan halkan ku qaabilnay wasaaradda amniga gudaha oo wasiirkeedii uu fadhiyo wasiir Doodishe. runtii arrimo muhiim ah oo hirgelinta sharciyadii dardargelinta howlaha socda dhammaantood waan ka wada hadalnay waana isu afgaranay in howlaha socda si guud loo wada wajaho wasaaradduna ay tahay tiirka keliya oo arrimahaas indhaha hor waxaan ugu nimid kulan isbarasho iyo inaan isla eegno shaqooyinkan hor yaalla iyo sidii aan u dardargelin lahayd howlaha naga dhexeeya oo ay ugu horeeyaan sharciyada ansixintooda hirgelintooda iyo korjoogteynta ay ku leeyihiin wasaaradda sidii si dhow ay ula socon lahaayeen howlaha wasaaradda ay ka shaqeynayso. waxaan la kulannay oon ku faraxsannahay xildhibaano khibrad u leh howlaha amniga oo isugu jira saraakiil hore agaasimayaal hore oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga guddoomiyaal gobol iyo saraakiil boolis oo dhammaantood ka soo shaqeeyey deegaano kala duwan oo caasimadda ay ka mid tahay guulna ka soo hooyey shaqooyinkii ay haayeen. marka waxaan rajaynaynaa xildhibaanadaas khibradda leh iyo shaqada wasaaradda ka socda in gacan weyn ay ku yeeshaan oo taladooda iyo tusaalahooda iyo wixii la xiriira khibraddooda aan ka faa'iidaysano.